dowladda Suudaan ayaa Soomaaliya ku eedeysay inay muwaadiniin Soomaali ah ay ka barbar dagaalamayeen maleeshiyaadka Darmusariic kuwaas oo dagaal culus kula jira ciidamada dowladda Suudaan tan iyo Abriil 2023. Mas'uuliyiinta Suudaan ayaa sheegay inay gacanta ku dhigeen rag ay ku sheegeen inay Soomaali yihiin kuwaas oo ay ku eedeeyeen inay qayb ka ahaayeen ama taageero siinayeen kooxda Darmusariic. Dowladda Suudaan ayaa sidoo kale soo bandhigtay muuqaalo iyo sawirro ay ku dooday inay caddayn u yihiin eedeymahaas. Ilaa iyo hadda dowladda federaalka Soomaaliya si rasmi ah uguma aysan jawaabin eedeymaha ka soo baxay Suudaan, mana jirto ilo madax bannaan oo si buuxda u xaqiijiyay in ragga la soo bandhigay ay yihiin muwaadiniin Soomaali ah ama inay si toos ugu barbar dagaalamayeen kooxda Darmusariic. Sidoo kale kooxda Darmusariic ayaa weli wax faahfaahin ah ka bixin eedeymaha loo jeediyay. Dagaalka u dhexeeya ciidanka qalabka sida ee Suudaan iyo Darmusariic ayaa gaaray sanadkii afraad waxaana uu sababay dhimasho iyo dhaawac baaxad leh, barakac malaayiin qof ah iyo burbur xooggan oo saameeyay qaybo badan oo ka mid ah dalkaas. Qaramada Midoobay iyo hay'adaha samafalka ayaa marar badan ka digay xaaladda bini'aadantinimo ee sii xumaanaysa dalka Suudaan.